السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج gaar ku saabsan soo dhaweyntii aqoonyahan Haashim Xaaji Axmed Xirsi oo kamid ah jaaliyada Puntland ee Finland lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe. Haashim waxa si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe garoonka diyaaradaha ilaa caasimadda uu gaaray. Waxaana soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala duwan. Aan Haashim kulan balaaran la qaatay haldoorka Puntland. Waxaana ka wada hadleen sidii Puntland doorasho xor iyo xalaal uga dhici lahayd xilligeedana dhacdo Puntlandna halka laga sii wado horumarka. ku soo dhawaada hadaba barnaamijkii daawadayaal. وكيلك جالية فنلندا قدوميها بولسو فيصل أقاسمها واحد الجندر كهوينك لول جامع نور أقاسمها ورفافنتا دقنك إيو علماء على بيوت أردو يضل افتقادو jaamacadaha ugu waaweyn Puntland haysto gabdhaha caafimaadka haysta oo meesha inala fadhida halgaamayaashii Puntland asaasiyaashina kamid ah Xaliimo oo agaasima arrimaha haweenka dawladaha hoose xaafadaha odayaasha nabadoonnada samadoonnada meesha dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta wakiilada jaaliyada Finland aan isla qadayno oo waqti isla qaadano. Finland waa meesha kaliya oo Puntland laga ayidsan yahay wax badan oo waxtarana aanu ka helo soo dhaweyn madaxdayada markay tagto oo si sharaf lana ay ka helaan Haashim waa raga ugu firfircoon jaaliyada Soomaalida ama tan Puntland oo ku nool dalka Finland aad baan ugu faraxsanahay dhamaan waa salaameynaa Finland jaaliyadeeda iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed oo Finland ku nool Soomaalinimada iyo ixtiraamka iyo sharafka inay wadankoodii mar walba ay u hadlaan oo ama waxtaraan aad baan ugu faraxsanahay taasna waa loo ogyahay dadka Finland in ka jooga oo Soomaalida ah run ahaantiina ma amaanayo waxyaalo badan oo miidiyahaas aan iska daawanaa Finland dadka naga jooga oo Soomaalida ah waxyaalaha mararka qaarkood fikriga caqligu gali karo ama Soomaalinimada ay ku hadlaan ama ku shaqeystaan ama dadka wax u taraan aad bay noo farxad waan salaamayaa dhamaantood inta ay maqlaysay inta ay hor fadhidaba dhamaantiin salaanka bacdi isku xirnaanshaha waxaan rabnaa Puntland iyo jaaliyada Puntland oo Finland joogta ama to Soomaalidaba inaan isku xirnaano in wadanka laga shaqeeyo nabadgelyadiisa iyo horukaciisa dad badan oo Puntland ku soo qaxay baa jira dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyi iyagoo doonaya markaa nabad iyo meel ay ku hoydaan oo nabadeyn Puntland waa nabad waa meel nabadda soo dhaweysa oo nabad laga nool yahay waa meel dadka maatada u roon Soomaali saddex meelood hadii loo qaybiyo laba meelood baa joogta meel waxa weeye waa dad masaakiina oo qaxootiyada ku jira oo waxa weeye luquudiyo oo loo qareemo dawladda uu qareento civil society uu qareemo hay'adaha dawladda uu qareemaan hay'adaha samafalka uu qareemaan meelna waa dadka shacabka oo ku nool meelna waa dadkii soo qaxay oo jooga magaalada dhex degan aad baan ii soo dhaweynayaa urur haweenahan aad baan idinku soo dhaweynayaa soo dhawaada
خير بعيني رجينا أنت هذا الكي يكسو قبقبيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتنا ما أنت نوع أو هاشم أو مرتين نوع أو أحبين في الفرعون أو كم إذا جالية دينا فنلند runtiina wax badan wadanka ka qabtay ama han noqdo mashaariicdan horumarka oo aadanaha dadka loo qabto xaga caafimaad iyo waxbarasho iyo biyaba runtiina markii aan anu hadda ka sheekeeyo waxaan ugu tagay magaalada degan yihiin waxay ahayd afar bilood ka hor Helsinki afar bilood ka hor markaan u tagay runtii waxaan arkay jaaliyad ugu wanaagsan oo isku duuban oo meesha joogta bay tahay jaaliyadaasu هاشمنا ورجع ضياشه وأحرنتي أضيق أقوين وهي أميش الجوي والنسود وهي وناق الصومال إنما يسوي حنيهين يو ضمير كوجر ودني ذات رنت هذا أنا مركي أي صبح وإلى صحلان وجيت كأوين وحنفليا وحوها دمان تودك دورش وكجرا ضد وحكاه بالشدي أو مهم كأويه واحترنا كجيساني هذا يصيري waxaad ku dari kartaan iyo waxtarkeena doorashada xageeda inuu yimaadeen Hashim bay soo wakiisheen asagana soo aaday runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa Hashim annagu bulshariid ahaan musharax ma soo dhaweyno laakiin Hashim waa soo dhaweynaa sharax uma tagno ma soo dhaweyno waa soo kaayimid laakiin Hashim waa qof kamid ah bulshada reedka ah waana shakhsi wax badan umada u qabtay runtii haddana aan isleenahay waa odayaasha wax ka geysan kara doorashada ama ha noqoto xagga la talinta ama ha noqoto inay nabadgelyo ku dhamaato ama wacyigelinta dadka ama ha noqoto observationki ogaanshaha wax socda inay khalad inay sax yihiin runtiina waa unu kamid ah qaybahan ugu muhiimsan ee dadka maanta aan sugaynay waxaan leenahay soo dhawow dhammaantiina waxaan rajaynayaa in asaas oo kale u soo dhaweyseen professorka laftiisu waa ka mid dadka dad qiimo badan oo aqoon leh oo technical oo maanta aan dhigi karno wadanka waxbay u tarayaan waxbay ugu yaalaan weeye dadkaasu waa xoog iyo aqoon dadka Soomaaliyeed ka maqan inaan soo dhaweyno oo ay u faa'iideeyaan ummadda oo sida wanaagsan looga faa'iideysto institutionadeena iyo hay'adaheena ay ku dhismaan noocaas ayaa muhiimad tahay oo qof walba sectorka uu aqoonta u leeyahay ummadda uga faa'iideeyo waxaan soo dhawaada Hashim iyo Alto waana soo dhaweyneynaa ma sha Allah qada sharafta aan isugu nimid gudoomiyaha Puntland ee haweenka agaasimaha hidaha iyo dhaqanka wasaaradda warfaafinta agaasimaha xaafadda Xalima Albiyood buddigayaashii ama asaasayaashii Puntland Xalima way ka mid tahay Arda Saciid Maxamed iyadana ka mid ah asaasayaashii Puntland gabdhaha kale oo sharafta leh dhalinyarada agaasimaha gudoomiyaha Boonsa dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ma sha Allah si aan ka fahmay hadalkiina waxaan u arkay inaan isu taagnay siday wax u noqon lahayd Puntland oo 20 sano jirtay mid waa iga su'aal midna waa idin kala midna mid waa iga su'aal oo waxa weeye ma sha Allah horta anu agaasinka waaxda jandarska wasaaradda haweenkana 20 sano Puntland jirtay 12 sano jooga oo dawladda memberka ah mid waa hadeer u malayn maayo inaan one man one vote aan gali karno laakiin hadeer insha Allah qurba joogteena iyo dal joogteena musharaxiinta iyo dawladda maanta joogtaba waxaan ahmiyadda saareynaa si in structure-ka jira uu sanooga burburin sidii aan ku heli leen dad tayo leh oo ay ugu horeyso golaha shacabka ama golaha baarlamaanka taas sidii si wada jir ah looga shaqeyn lahaa waa inaan ahmiyadda saarnaa markaas waxaan xili karnaa dawlad tayo leh oo soo doorata cidii munaasab Puntland ku ah oo soo dooran lahayd bacdalka markii laga baxana insha Allah waxaan idinka filaynaa idinka iyo qurba joogta kale oo noo imaan doontaba sidii aan ugu gudbi lahayn oo dawladda insha Allah bi'inillaahi al-kariim haday tan joogta noqon lahayd iyo hadii mid kale Ilaahay calaf ugu daraba sidii ahmiyadda loo saari lahaa sidii loo heli lahaa one man one vote in la helo taas anaga aad baan u soo dhaweyneynaa haddaan nahay dhalinyarada iyo haweenka 20 sano ay Puntland jirto waxaan nahay dadka aad ugaga maqan roolkii dawladda institutionada iyo haykal kasta oo dawladdu ay leedahay dhalinyarada iyo haweenku way ka maqan yihiin
waxa keenaysana waxay tahay waa qaabka qabiil oo wax ku soo dooranayno iyo in wali raggii waaweynaa oo Puntland u dhashay wali iyaga kuraas jaceylka ay ku sii jiraan waxaan is oran karnaa shanta isbedel oo dhacay madaxweynaha maanta jooga ugu yaraa madaxdii kale way ka yaryareen laakiin biin ilaahi kariim inay madax ka yaryar timaadaan rabnaa oo ka firfircoon oo ka aqoon yahansan sababta aan taa diiradda u saaraynana waxay tahay dhalinyaradeena waa ogtiin dhibaatada haysata way tahriibaan oo badahay ku baaba'aan waa kuwan aniga gabdhaha dhinacayga fadhiya hadda waa jaamacadihii bay ka baxeen gurigay dib iigu joogaan wax ay haystaan oo rool ah ma jiro waa meelaha aan rabno in marka aad nagala qayb gashaan aad ahmiyadda ku saartaan shirarka intaa ka sii badisaan markaad timaadaan aad cid kasta aad is oran kartaan waa reer Puntland aad muxuu ahaa ahmiyadda ku saartaan tan kaliya oon rabno ilaahay idankiis ma filayno Puntland markasta kama filno in macnaha qalalaas inagu yimaado inkastoo ay musharaxiintu maanta aad u fara badan yihiin oo qof kasta uu sharaxan yahay ay soo kala miirmi doonaan laakiin musharaxiinta dhabta hadhow ay tira yar iska noqon doonaan taas ma filayno in qalalaas inagu yimaado laakiin waxaan rabnaa inaan ka baxno maalin kasta inaan sugno qof aan bulshadii ku ahayn munaasib ma aha munaasib inuu aqoon yar yahay ma aha inuu macnaha uusan cadaalad ahayn laakiin waa lama soo dooran way macnuhu qofka haddaan la soo dooranna xilkasnimadiisu aad bay u yaraanaysaa because of waxaan maqlaynay musharaxiinta qayb hadeer leh dhalinyaro weydiisoo dhaheen haddii aad musharax qaldantid berri ka maalin ma ku dejin karnaa maxaad ii dejinaysaan buu yidhi maadinkaa lacag iga qaatay 66 iga qaatay annaga 66 rabnaa inaan ka tagno oo aan isbedel yimaado one man one vote ah mar labaad waa idin soo dhawaynaynaa soo dhawaadaan idin leenahay aad baan ugu heelanahay jiritaanka Puntland midna dadkeena waa isaga qaldanta jiritaanka Puntland iyo cidda noqonaysa mas'uuliyadda waa difference qofka mas'uulka ah uu la imaan karaa shar iyo khayr laakiin jiritaanka Puntland inuu san mar walba lumin inaga oo dhan dal iyo dibad dad inta joogta mas'uul bay noo tahay intaasaan ku darsanaa fikirkeyga sallallahu alayhi wasallam dhammaan anigu hebel badan baa maqlayay marka nin walba asagoo salaanta uu ku qaadanayo meesha uu ka leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaarta sharafta leh waxaan leeyahay haashin kolley message dheer baa wadaa ilaahay ka abaalmariyo insha Allah xaqana Allah kugu aadiyo kii wax badan dadka kala hadla oo dadka u sheega oo ilaahay kugu aadiyo inta san kolley xilliga hadda lagu jiro waa xilli xasaasi ah codkay waa gaaban yahay malaynaya xilli xasaasi ah waxaan malaynaa inaan ku noqono ama sharaxno looma baahna waa wada ognahay laakiin ilaahay ha noo xulo kan ugu fiican oo bulshadana matali kara waxyaalaha ay u baahan yihiin oo wiig aan ka nahayna hore nooga qaadi kara ilaahay baan taa weydiisanaa marka koowaad iyo marka labaadba haashina waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo soo dhaw insha Allah aqoon-yahanka mas'uulka ah oo nooga yimi fooriyaanka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaw ilaahayna kula garab galo hawsha haysid qof kasta islaamna hala garab galo inta khayr ku jiro insha Allah dadkan kulay bulshadaana ka mid nahay aniga magacayga dib ugu laabta soori deeqax xisbiga la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeeya kulay hadii shacabka la fiiriyo gooraan one man one vote gaarin Allahu a'lam laakiin Allah subhanahu wa ta'ala sid khayr ku jiro hanooks waan rajaynaynaa inaan gaarno taas waxa ka horeysa inaan bafahano siyaasadda Soomaalidu dhagtay ka maqashaa laakiin maxayba tahay waa jecel inaan miis fariisano inta hadalno mid walaalkeena wax ka sheegno mid kale ku habsaano ummaduna maxay nooga hormareen tooda bay yaqaanaan horeba u socdaan laakiin anaga ba isku maqan ba Allah na soo celiyo xaq Allah nagu haadiyo insha Allah hadalka inaan badiyo maahan Allah in barakeeyno xaq Allah nagu haadiyo mid ka khayr ku jira Allah noo sugo insha Allah oo ummadda waa ognahay maanta waxa meesha ka jira dalkeena suu yahay iyo marxaladiisa iyo waxa lagu jiro dib inaan ugu laabano maahan ilaahay hore hanoo kaxeeyo 20 sano jirnaa laakiin 20 sano jirno wali iyo alaana wax weyn inaan hore u soconay ma ba aaminsanin laakiin insha Allah waa sugeynaa waa ndaway wax kasta ilaahay hanoo rumeeyo taasi waa taa ilaahay idankiisa kolley ba madax baa ta waa lagu soo diray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xaqaas oo nagu aadinay inaa la kulantid nimankaas 66 meel kasta laga nusbaarayo kolley xaydaan bay ku jiraan laftirkooda intay xaydaanka ugu jiraan iyo Allahaba xaq Allah tusee
in lala hadlo nimankaas oo si fiican kitaabka ay marayaan iyo waxyaalaha ay marayaan inay waxa weeye dalkooda iyo dadkooda inay ku soo noqonayso dhibaatada aan la kicilaan oo dhabarka uga jaban ay tahay maalin walba kitaab baa la maraa xildhibaan kasta wuu maraa kama run sheego laaluushkiisa hore ka qaadanaya kan qaata iyo kan bixiyana waa ognaha waa isku mid marka waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaq allah nagu aadiyo waxa maaragtay laga qaracmo wax la qaadan kara runtii maaha haashin xaaji axmed xirsi waxaa soo wakiishay dadka reer puntland oo ku nool Finland wuxuuna noqon doonaa ragga dibadaha ka yimid oo tirada badan ama Yurub ha ka yimaadeen Yurubta kale ha ka yimaadeen ama ha ka yimaadeen Mareykan ragga muraaqibka ka noqon doona runtii doonayana wax hufan oo wanaagsan oo walaalnimo leh tulnimo leh puntlandnimo leh maaragtay ninba ninka ka karti badan inay xushaan ragga maanta u soo istaagay inay xilkii madaxweynenimada Puntland qabtaan marka reer Puntland Finland ku nool ninka odaga ayay soo wakiisheen isagaana wakiil u noqon doona dee bidmo ragga wuxuuna ka mid noqon doonaa muraaqabiinta ka ah wixii faahfaahin oo dheeri asaa inoo sheegi doona mahadceliyo sida jiran oo walaaltinimada sharafta aad soo dhaweyseen inta kadib anu waxaan ka imid wadanka Finland waxaan salaan guud idinka wada jaaliyadii Puntland oo joogtay wadanka Finland waxaan kale oo hadalkayga ku darayaa wadanku wuxuu ku jiraa xaalad doorasho marka dadka qurbo joogta reer Finland iyo guud ahaan waxay rajeynayaan in ay ka dhacdo Puntland doorasho dhacdo xilligeedii oo doorasho xalaal ah oo dhacdo xilligeedii tan labaad waxaan rajeynaynaa in doorasho aan u soo jeedinaynaa ismada iyo ay ugu horeeyaan ismada iyo dhaqanka Puntland in ay xubnaha baarlamaanka ay soo xulayaan ay noqdaan xubno tayo leh isla markaana aan laga tigin qoondada haweenka iyo dhalinyarada midda saddexaad waxay tahay in macnaha laga feejignaado in doorashada Puntland carqalad la geliyo oo la isku dayo in la gacanta la geliyo ummadda reer Puntland ay taas waa inay si guud ahaan uga soo wada jeestaan oo ay ilaashadaan midnimadooda iyo maamulkooda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Finland oo deegaan ahaan ah waxaan soo maray dhowr wadan oo Yurub ah iyo Imaaraadka Carabta wadanka waqti dheer ma moogeen oo sanadkii hore waxaan joogay muddo 3 bilood ah haddana adduunka communication sidoo hore maaha oo waxa laga yaabaa dadka dibadda jira inay dadka wadanka jooga xogta ka hor og yihiin marmar sababtoo ah social media iyo internetka oo u sahlaya waxyaabaha aan dalka u mid waxa ugu weyn inaan isbedelka iyo dib u dhiska dalka ka socdo ka qayb qaato waxaa jira dad saaxiibadaya oo iga soo horeeyay iyo dad gadaal ka imaanaya waxay ila tahay in dalku noo wada baahan yahay kulligeen yar iyo weyn inaynu ka qayb qaadano dib u dhiska dalka waliba dadkeena waaye aragga u jooga dhismihii Puntland iyo taariikhdii laga soo maray inay mas'uuliyad gaar ah naga saaran tahay arrintaas adduunka horumaray waxa lagu horumaray bulshadu waxay garatay inay ilaashato maslaxadeeda caamka ah ama danta guud waayo bani aadamku waa qaldami karaa waa daciif oo wax walba ka suurtagala sidaa darteed waxaa loo baahan yahay hay'ado dawladeed oo tayo leh kuwaas baa dalka iyo dadka badbaadin kara oo sharci iyo nidaam dawladeed keeni kara marka waxaan saaxiibadayda qurba joogta iyo dal joogtaba isla garanay inay muhiim tahay in Puntland ay ka baxdo xeer jajabka oo haykal dawladeed oo tayo leh loo dhiso aqoon-yahaniinta reer Puntland ay arrintaas contribution ku bixiyaan nin walba wixii uu awoodo hadday ahaan lahayd dhan amni waxbarasho caafimaad saxaafad siyaasad iyo dhaqaale Obama wuxuu yiri Africa doesn't need strong man Africa needs strong institutions marka waxa la gaaray xilligii Puntland horumar ku talaabsan lahayd dhanka dimuqraadiyadda siyaasadda dhaqaalaha maadaama aan haysano maamul jiray 20 sano oo caqabado badan ka soo gudbay waxyaabahaas ayaan u imeeyay inaan goob joog u ahaado xilligan taariikhiga ah ee dalku ku jiro doorasho shanaad ee Puntland doorashadii shanaad ee Puntland ay dhowdahay oo muddo yar ay ka hartay waxaan qurbo joogta Puntland kala soo hadlay in dalka dib u dhiskiisa kaalin mug laga qaato iyo in tartanka qurbo joogta deegaanada kale ee Soomaaliya lagu daydo
oo dalka maalgashi iyo aqoon iyo khibrad lagu soo celiyo weliba xoogga la saaro meelaha baahidu ka jirto sida caafimaadka waxbarashada iyo shaqo la'aanta sidoo kale dhallinyarada waxbaratay iyo daljooga waxaa looga baahan yahay inay dalkooda aaminaan oo ka shaqeeyaan amnigiisa bilicdiisa iyo wax soo saarkiisa insha Allah waxaan rajaynayaa in isbedel khayr qaba dalka ka dhaco kaasoo ummadda u horseeda midnimo iyo baraare aamin mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa sida wanaagsan oo sharafta leh aad ii soo dhaweyseen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh